السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا مركلا إيو لبرو. ما أنتنا وحن وذا برندونا indices, radicals radicals كا إنغو استعمال دونا logarithm. Indices أو index أو جماعة وحوية أو كلا وحنو شيغا and integer and number add isku dhufato itself. Like for example, tusaalaha waxa lagu fiican marka tusaale ahaan lambarka 2 ah hadaynu isku dhufano 3 times 2 times 2 times 2 waa maxay lambarka 2 times 2 times 2 waxa weeye waa 4 times 2 waa 8 imise jeer baynu lambarkan isku dhufanay marka waxaan isku dhufanay 1 2 3 3 times oo lambarka isku dhufanay ayaa waxa weeyaan waa indices markaas u noqonaya waxa weeye waa integer how many times oo lambarka aan isku dhufanay that's it wax kale maaha lambarkaasi waa intaas oo jeer unbu noqonaya waxa dad aragtid indices intaas unbu ku sheega another example waxa weeye 4 times 4 times 4 waxa weeye waa 16 times 4 waa intaas waa afar jeer baad isku dhufatay lambarkaas marka waa 64 marka lambarkaas imise jeer baad isku dhufatay waxaad isku dhufatay 1 2 3 isagana waa 3 times haddii kale aad isku dhufatid imika 5 times 5 times 5 times 5 waa lambarkii baad isku dhufatay afar jeer baad isku dhufatay marka again 4 times kaasi waxa weeye waa wuxuu ku sheegayaa indices weeye marka indicesku waa maxay waxa weeyaan waa lambarkaas intaas jeer aad lambarkaa isku dhufatay unbuu noqonayaa wax kale ma aha okay intaa waan isla fahnaan filayaa haddii sida kale loo dhigo wuxuu kaloo noqon karaa marka imika for example oo kale dib ugu noqono 2 times 2 times 2 halkan ku oran lahayn waa 3 times waxay taasi la mid tahay oo kale waa 2 to the power 3 taa lafteedu waa 8 un marka indices markan muxuu kaloo noqday wuxuu noqday waa powerkii ama exponentkii ayuu indicesku noqonaya marka halkaana waxaad ka arkaysaa inuu yahay exponentka iyo powerka uu indicesku yahay T4 ka ahaydna same thing ayay noqonaysaa marka 4 times 4 times 4 times 4 kina waxay noqonaysaa 4 to the power 3 ayuu noqonayaa waxaynu warta intaan radicalska u gudbin haddaynu eegno expressionka oo ah dee 2 terms iyo wax noocaas xisaabta marka expression aad maqashid waxa weeye waadu yidhahda 2 to the power 3 times for example 3 to the power 3 iminka halkaa waxaynu nidhi exponentkaasi waxa weeye waa indices tanna waa indices marka let's say different number ba halkan 3 to the power 4 ba ka dhig halkaa marka 3 and 4 kaasi waxa weeye waa 3 and 4 waa indices markaasay noqonaya indiceska expressionka indiceskeedu waxa weeye waa 3 iyo 4 ayay noqonaysaa marka labaduba waxay noqonayaan indices haddaynu u gudubno iminka radicals iyaguna maxay noqonayaan radicalsku maxay tahay wax kale maaha waa expression iyada laftigeedu waa expression halkii aynu sida easygaad ku fahmi kartaa waxa weeyaan lambarkii marka hore aynu nidhi 2 times 2 times 2 times 2 oo ahaa la mid noqonaya 2 to the 3 waa 3 times baa la isku dhuftay marka halkanna waxaynu ka dhigi karraa oo odhan karraa radicals wuxuu noqonayaa lambarkaasoo jajab ah ama maxaa to si marka loo dhigo waa expression la xidhiidha rootska for example oo kale square rootka wuxuu noqonayaa waa half ama square rootkaas oo kale markuu waa kaas waa markuu yahay waa half waa adoo yidhaahda lambarku wuxuu doonaha noqda let's say numberkaas inuu x yahay to the power of half cubic rootku markuu yahay kana waa squarekii markaa square kana waxa weeye cubic hadduu noqdo cubic rootkuna muxuu noqonayaa halkaa 3 dheh marka cubic rootkuna waa maxay waa x oo iyaguna ah 1/3 halkaas hadda sii soconaysaa marka 4th oo ah wuxuu noqonayaa waa x oo ah 1/4 and so on marka halkaa maxaa ka cad waxa weeye 2 to the
wixii la saaro oo jajab noqonaysa markaa tusaale waxaynu u soo qaadan karaa let's say 4 square rootka 4ka marka hadduu 4 yahay square root 4 kolley top of your head baad garanaysaa square root 4ku waa 2 buu la mid noqonayaa laakiin halkan maxaynu ku ogaanaynaa waxa weeye square root of 4 wuxuu la mid noqonayaa 4kaas oo lagu power gareeyey half wuxuu kaloo la sii noqonayaa 2 to the power 2 oo half lagu power gareeyey marka halfka iyo halfkaas ay isu baxaya marka halkaas that's why we get 2 resultkaas saas ku soo baxay marka radicals halkaas ku soo baxayaan radicalska waxa uu la xidhiidhaa waa expressionka la xidhiidha rootska hadda radicals maqashid tii hore ahayd maxaa ahayto waxa weeye indicieskuna waa number of timeska uu number isaga keligiis aad isku multiply garaysid ayuu noqonayaa laba tusaale umaynu isku xigeen soo qaadan doonaa waa 4 to the 3 aan hore u soo qaadanay oo 4 times 4 times 4 ka ahaa oo la mid ahaa 16 times 4 ama noqonaya 64 4 minus 4 haddaynu noqo cubic saarnana muxuu la mid noqonayaa waa halkaas minustaasi way joogaysaa halkeeday joogaysaa waxa weeye waa minus 4 oo 3 times baad isku dhufanaysaa isagii times minus 4 times minus 4 ka minus times minus waa plus always remember that halkan ku xasuusnow minus times minus waxay ku siinaysaa plus minus times plusna waxay ku siinaysaa minus plus times plusna waxay ku siinaysaa plus and plus times minusna waa iyadii aad kala hormarisay ama cumulative wax noocaasa loo yaqaana marmay afka ingiriiska minus iyo pluska soo kala hormarisay marka waa minus times plus waxay ku siinaysaa iyadana minus marka minus times minus waxay ku siinaysaa waa plus marka waa plus 16 times minus 4 marka iminkana waa minus times minus waxay ku siinaysaa minus 16 times 4 waa minus 64 okay iminkana waxaynu u gudbaynaa laws of exponent ama sharciyada exponentka u degsan si guud ahaaneed ama si general ah number haddaad lumber kale ku dhuftay waa in horta number 1 waxa weeye basisku waa inay same ahaadaan lambarada basisku isku mid yihiin iminka for example oo kale lambarkaas haddaad tidhaahdid x times waxaan usoo qaadanaa dhibic iminka maadaamanu x ti qaadanay x uma soo qaadanay waa dhibicda waxaa loo yaqaanaa also multiplication sign marka x oo ku jibaaran ama exponentkeedu yahay m haddaynu ku dhufanno number kale oo base kale oo la mid ah oo exponentkiisuna yahay n for example different number waxa weeye waxay la mid tahay mid ahaan u soo qaado markaa basekii mid keliya ka soo qaad oo m plus n iskuna dar exponentkii dusha saara tusaale ahaan example waa 3 oo 8 ah markan iyo 3 oo 5 ah waxay la mid tahay maxaanu nidhi mid u soo qaado baseka mid ka mida soo qaado exponentkoodana isku daro 8 plus 5 marka oo la mid noqonaysaa 3 to the power 8 plus 5 maxay noqonaysaa dee waxay noqonaysaa 13 marka intaasay noqonaysaa answerkina waa kaasa haddii uu yahay marka powerkii kale kusii jibaaran iminka for example oo kale haddaynu haysano x oo tii baseka ahayd power ah oo kusii jibaaran another power maxay la mid noqonaysaa markaas waxay la mid noqonaysaa tanna waa x tii baseka madaxabad soo qaadanaysaa labadii power baad isku dhufanaysaa markaa m times n tusaale ahaan haddaynu markaa midana soo qaadano waxa weeye 2 to the power 3 haddaynu soo qaadano aan kusii jibaarno 4 waxay la mid noqonaysaa 2 3
times 4 oo la mid noqonaysa 2 to the 12 tusaale kale haddaynu soo qaadano 1 over 2 to the 3 haddaynu tusaale soo qaadano oo aynu ku sii wada jibaarno waxoo dhan 2 waxay la mid noqonaysaa waa 1 to the power 2 is 1 qaybta hoosena waa maxay waa 2 to the power 3 oo 2 kusii jibaaran iyaduna oo la sii mid noqonaysa 1 over 2 to the 3 2 3 times 2 oo la mid noqonaysa 1 over 2 to the 6 saasun baad usii wadaysaa markaa tusaale kale haddaynu sii gudubno haddaynu laba lambar for example x and y haddii ay powerkoodinu yahay n waxay la mid tahay x oo n ah iyo y oo n ah xasuusnow laakiin waxa weeye where y aanay 0 ahayn n-na ay ka weyn tahay 0 tusaale for example haddaynu idhaahno markaa 4 divided by 2 oo ah ku jibaaran 2 maxaynu nidhi waxay la mid tahay waa 4 oo ku jibaaran 2 iyo 2 oo ku jibaaran 2 oo la mid ah 4 times 4 waa 16 2 times 2na waa 4 maxay la mid tahay 4 divided by waa 4 marka halkan haddaynu quick tii hore aynu halkan si quick u eegnana waxa weeye 4 divided by 2 waa 2 2 to the power 2na waa 4 marka it's proving marka taasina waa taasaa hadday laba lambar ay kala hooseeyaan oo ay powerkooduna uu mid guud yahay waad u kala kan korena waad saaraysaa ka hoosena waad saaraysaa ugu dambeyn waxaynu kusoo gabagabeynaynaa haddii aynu haysano markaa lambar ah for example oo kale 2 divided by 5 waa laba lambar oo again aad isu qaybinayso oo aad 2 divided by 5 ood usii qaybinayso 2 divided by 5 kale oo kusii jibaaran 4 waxay la mid tahay wax kale maaha waxa weeye waadoo yidhi oo kale x divided by 7 divided by x oo 4 ah marka maxaynu nidhi haddii labada lambar laysu qaybinaya markii hore laysku dhufanayay laakiin labada base ay isku mid yihiin waad isku daraysaa hadday labada base ay kala duwan yihiin hadday labada base isku mid yihiinna oo laysu qaybinayana waad kala jaraysaa marka maxay noqonaysaa x baseka soo qaada xabad keliya 7 minus 4 waxay la mid noqonaysaa x to the power 3 xt maadaama ay la mid tahay 2 to the 5 marka maxay noqonaysaa 2 to the 5 oo ah 7 minus 4 oo la mid noqonaysaa 2 to the 5 oo ah 3 answerkeedna waa kaasaa marka halkaasay ku dhammaanaysaa iminkana waxaynu isla baran doonaa qaybtii ugu dambeysay ee ah logarithmka logarithmku wax kale maaha waa function ama wax horta ka kooban wuxuu ka kooban yahay laba component oo midna yahay base halkanoo base ah oo b ah iyo argument oo kanoo argument isna argument ayaa la yidhahdaa marka labadaas wuxuu ku siinayaa marka muxuu ku siinayaa wuxuu ku siinayaa exponent ama indices saynu hore usoo dhiganay indiceskaasoo ah number of times marka la dul saaro baseka number of timeska marka la isku dhufto baseka ku siiya argumentka waxaan filaya inaad fahanteen intaas numberkan indiceska ah waxa weeye saynu hore usoo sheegnay indices waa number of times marka laysku dhufto ama multiply the base by itself ku siiya argumentka aad hesho markaa federation markaa ingiriis iyo Somali federation sida isku qaata kala shaandhaysta markaa bimacnaa waxa weeyaan
waa lambarkaas halkaa uu ku siin doono loggaasi uu ku siin doono wuxuu log la mid noqon doonaa waxa weeye waa inta jeer aad isku dhufato baseka si aad u hesho lambarka argumentka ama marka sida kale loo dhigo maxaynu hore u sheegnay indices wuxuu la mid yahay indices waxaynu hore waa 4 times 4 times 4 kani marka waxa waa inta jeer aad isku dhufato 4 marka numberkaas waa 3 times waa isku dhufanaysaa oo la mida again waa 4 to the 3 marka powerkina waa 3 marka waxaan kaloo odhan karaa marka waxay log x oo base b ah waxa weeyaan wax kale maaha lambarkani waxa weeyaan uu halkan noqonaya waa la say numberkan aynu qaadano power p aynu ka dhigno marka waxay la mid tahay waa b to the b oo la mid noqon doona x. That's how it is. Simple as that. Okay. For example, let's say log base 10. Saynu ognahay marka baseska la yaqaana waxa weeye waa base 10 iyo base 2 iyo base oo dhan uu noqon karaa anyway 3 4 whatever it is uu noqon karaa laakiin kuwana muxuu noqdaa waa long iyo halkan oo ah oo aan la muujino log oo keliya ah marka log base 10 oo ah let's say 100 muxuu la mid noqonayaa marka no, first of all waxaynu u qori karaa tan log 100 haddaynu doonno 10 kama muujinayno because base 10 ka lama muujiyo waa 10 kude waa iska normal I think waxaan u malaynayaa basically because faraheena ah 10 farood bay leenahay marka wixii waa iska natural marka waxaas uma baahna inaad muujisid mar walba dushumaad ka haysaa laakiin halkan in this case waaba muujinaynaa for example sidaynu markaa u sharaxnay exponentka marka halkan uu noqon doonaa muxuu noqonayaa baan nidhi waxa weeye waa 10 how many times by 10 and inaan isku dhufanno how many times do we need inaan 10 isku dhufanno by itself to get 100 oh what 2 times you can tell that 2 times so that means exponentkana muxuu noqonayaa waa 2 therefore log 100 base 10 wuxuu la mid noqonayaa 2 that's it that's how aad u soo saaranaysid aad oran kartaa maaragtay waxa weeyaan waa maxay ahayto halkaasuu logaaga kuugu soo baxaya haddaynu tusaale kale u noqono waxa weeye log base 3 iminkana oo 9 muxuu la mid noqonayaa marka basically iminkana logarithmkan waa mashiinka soo tufi doona exponentka aynu dusha ka saari doono trigan exponentka aynu dusha ka saari doono trigan trigan maxaynu dusha ka saari doonaa waa waxa aynu dusha ka saari doono ma naqaano markaa let's say x ee ina siin doona muxuu ina siin doonaa waa 9 marka halkaa x taasi waxaasu noqon doonaa haddaba sidaynu u helaynaa markaa 3 oo something dusha laga saaro oo 9 ku siiya 9 kan maxaynu u dhigi karnaa waxa weeye waa 3 square oo maxaynu soo dhiganay markaa markuu labada base ay isku mid yihiin basekan iyo basekan de waa isku wada mid soma marka that means powerkuna waa isku mid marka that means x waxay la mid tahay 2 therefore halkan x-tana maxay noqotay waa 2 log basekaasina wuxuu la mid noqday 2 buu la mid noqday halkaasaynu ku helnay logarithmkana saas ayuu isaguna noqonayaa tusaalaha ugu dambeeya imkana soo qaadan doonaa waxa weeyaan waa log base 2 of 8 waa maxay markaa sidaynu helaynaa waa again you ask yourself 2 to what exponent 2 to what exponent ku siinaya 8 ka 2 to the x 2 to the waa maxay tanna 3 oo ah x waa 3 therefore log base 3 I mean base 2 8 waa 3 si kale haddaynu u dhignana haddaad doonaysidna waxa weeye 2 to the x 2 to what exponent ku siinaya 8 okay 2 to the 0 exponent muxuu ku siinayaa
1. 2 to the 2 exponent muxuu ku siinayaa waa 4. 2 to the 3 exponent muxuu ku siinayaa waa 8. Therefore, the answer is to what exponent baa la isweydiiyey? Answer is x is 3. haddana waxaynu kusoo gabagabaynaynaa tan logarithmkan ugu dambeeya oo aynu odhan doono sidii oo kale 2 to the what exponent ayaana siinaya 1 over 8 waa 2 to the what exponent 1 over 8 kiina waa maxay 1 to the 2 3 2 to the what exponent markaad kan kor soo marisid markaa waa 2 to the minus 3 x-na waa minus 3 halkaa therefore wuxuu noqonayaa minus 3 intaasaynu kusoo gabagabanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheerka commentka iyo subscribe-kana ha ilaawin